بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوا إنجنير أحمد محمد حاج آدم وأنا إنجنير كجودة وشد الله يرك. مدة إنك أدو در وريته تبص ندلك شو 2001 ينكو رئيس وان رقاق وشد الله يقول يعني كنا قيب كان نقضه تبوك أنت وشدن. حلقة وحكم رأيها عبد علي برخد إنجنير عبد علي برخد حلقة وح dibloka iyo rehabilitation lagu sameeyay mishiinadii hore dawladii hore ay ka tagtay meesha kaga tagtay waxay dadweynaha iyaga aanu sheeginaa reerkiisan macaamiisha in aad moodo in halka horeba mar walba dhibaato ay ka jirto halkan underestimation dibta iyo hawsha meesha ka jirtaba hoos loo dhigayay kicida hore waxay idin la socoto mishiino cusub kuwana ay u noqdaan backup xilliga cigaal bay hayd mishiino cusub meeshii lama keenay waxaan dayactirnoon taabanay uun dib u kicinayba waxaan mishiinadii hore waxaan filayaa daadan imika ay hortaagan inaan midkiina 280kii dhalanba mishiinka maanta wax laga doonayaa reerkiisa wax ka doonaya wax weyn mishiin 280kii la dhigay meesha 280kii haba la dhigay wax dayactira 280kii baa mar la maydhay inta loogu yeedhay qoladii lahayd bahalka dawska farsamayaqaan Talyaani ahayn yaa maydhay bahalka dib isku celiyeen laakiin wax matiin soo kale lagu sameeyay ma jirto ilaa waqtiga ilaa yoomina haadan mishiinkaas uu shaqeynay waa mishiin heavy duty industry umbaha uu adkaysi badan buu lahaa waxa uu laga yaabaa saacadu imika shaqeeyay waxa weeyaan wax ku dhow 70,000 saacado 70,000 hour running hours kiisu weeyaan wax imisa jeer 7 jeer in oobacda laga bedelahay ku jirto dhan dibadda loo soo saaray waxba lama soo saarin kaas baynu inoo irmaanaa oo shaqeynay mishiinada kale meesha yaala misna mid rastana ag yaala kaasi qodiis waqtigiisa la keenay isla waqti baa hayn isna iska fadhiyo waxa waqtigii riyaale kaasi waqtigii cigaal bay wuxuu ku bixiyo xogaa lacag mashruuca laymanka iyo xogaa transformer la keenay wax mishiino cusub la socday ma jiro hadii la doonayo dadweynaha iyo waqtigan ummadda oo ilbax noqotay ee leedku uu yahay nolosha qaybta ugu weyn iyo biyuhuba waxa idin mishiino cusub lagu bilaabo halka qalad weyn baa ka dhacay mishiinada in lagu bilaabay warshada mishiino cusub waa la wada garanayaa aqligeena inuu wada fahmayaa mishiin intaas oo sano meesha jeelay oo aan wax spare baadana aan la gelin haba yaraatee inuu iska fadhiisani waxa weeyaan waa wax cad waxa ugu badnaa filtero ayuu ma ka bedelaa haddaad bool fur istira boolkii uu go'aya mana haysid waa naaftada u ilaali iyo saliidjiita u ilaali saliidjiina waa lagu shubaa naaftana waa lagu shubaa bas waxa la wax kale oo loo ilaalin kara haba yaraatay ma jiro sidoo u socodayna uu iska baqtiyay marka sida runta 4 injiin bay haayeen laba katrabilar haayeen labadii way duqeeyeen hadana waan canda dawlay waxbaanu iskugu bebedelnay labadii hadana way duqeeyeen mar saddexaadkii aanu isku ka u dambeeyay aanu hadana isku geegeynay ayaa weegan fariistay isna imiga waxa jira isna ku yaro asa parking la oran jiray oo laba jeer isaguna laacay rasaasta dabadeed imiga rasaas yar baa maalin dhaweed loo jiray doraad baa xoogaa dhowr mid loo diray dhowrkii mid way yimaadeen imiga ku tala jirnaa inaan isna istaadno oo balada intuu soo socdo muddo inuu sii socon doono hadana imiga aanu istaarayna maantadan duurka magacayga horta waxa la yiraahdaa Axmed Maxamed Xirsi waxaan madaxa ku-xigeenka madaxa shaqaalaha waxaan halkan horta idinku sheegayaa warshada leerku baaxadda ay shido inta ay shido cid shida ma jirto private wala cid kasta sheegay shanta degme magaalada Hargeysa baan shidnaa leerkaan shidnaa ilaa 6 milyan oo laambadood weey mishiinada siyaad barnaamijka kaga tagay wax dambo dawladdu ku kordhisay ilaa yaratay ma jiro anu waxaaba la yaabay nimanka mishiinada gacanta ku hayay abaal marin hal siyaaban leh maadaama imika dhowr iyo 20 ka sanadood ay farahooda ku soo wadeen dawladdu maalgelinta ay sameynaysaa waxa nin deyn ku lahaa bay deyntii ka bixinaysay laakiin waxba lama gelin mishiino cusub lama keenin dawladda waxa uu sheegay in aanay hawl yarayn in lagu wareejiyo private oo dadka danyarta ee leedka bilaashka ah runtooda wax ku akhrisanaysa habeen iyo maalin inaanay heli karin oo aanay goyn karin maanta annaga intay taasi sidantay ayaa dadku leedku u jabin maalintay tani meesha ka baxdo waxa laaliyo wixii la doonaa unitka laga siinay anu markaa madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu 3,000 qof ee meesha ku nool 2 milyan ee laambadood la shidayo security laamka jeelka dhakhtarka
saldhigyada masaajidada waxaasoo dhan maanta inuu badbaadiyaa loo baahan yahay oo dadka meel ku tiriyo aanay si sahlan wax loo iibin karo carabka loogu dhufan karana aniga ilama ahaba nin dawlad ka soo jeedo ummadan ka mas'uula oo cod ku helay inuu sidaa yidhaa hadalka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii shalay lagala kulmayna waa hadal aad iyo aad u qiimo daran wey waxaan leeyahay madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa waxaanu kuu dooranayna waxay ahayd inaad maalgeliso waddankooda horumarkiisana aad samayso in badanoo imika horumarna waad samaysa warshadan laynkuna maanta aday ku sugaysaa iyo dadweynaha ku nool iyo inta shidanaysa madaxtooyaduna waxay noo jirtaa 300 oo tallaabo taa maanta haddii wax laga qaban waayo wax kale wax laga qaban karayaana ma jirto wasalaamu calaykum waraxmatullahi anu waxaan hayaa ismaha maamulka ee lacagta hay'adda korontada xaaladii injiinada waxa aad uga warramay injineerada oo ku noqon maayo halkaa laakiin xaaladda dhaqaale waan soo kabinaynay bariyan oo institutionkani waa institution dawladeed marka la eego systemskiisii iyo maxaan raday goobihii lacagta lagu qabanayay iyo billing systemkiisii iyo laymankiisii iyo transformatoradii iyo xarkihii wixiiba waa noo salan bay ahaayeen si wanaagsan baana hawshu nagu socotay oo markaad eegto xaafadaha waxaanu ku leenahay 6 xafiis xafiisyada waxaanu u furnay in aanu adeega dadweynaha u dhaweyno oo haddii xarig xumaado halkii markii hore laga iman lahaa warshada in xafiiska u dhow ay cid walba adeega ka hesho oo leedkii loo hagaajiyo taas waa xaggii maxaan rahdaaye maamulka laakiin waxa ay nasiib darradu ka dhacday mishiinadana runtii wax anaga naga awood weyn bay ahaayeen waxaanu aad xoog u saar jirnay dee horta saliidjiinta iyo naaftada iyo mushaharka shaqaalaha iyo isbeer baarka fudud intaa inaanu iska bixino ayaan xoog aad u saari jirnay intaana intii awooddeeda ahayd waanu ku dadaalanay xaggeygina kama xumaanin laakiin mushkiladdu waxay ka timi saa ay dee idin sheegeen injineeradu mishiinadaa gaboobay ee muddada badan dee maxay dhahday soo shaqaynayay ayay cilladdu ka timi hadalkaa uu sheegayo maxay dhahday injineerka ka soo yeedhay waa hadal aan aad uga xunnahay maanta in la yidhaahdo institution dawladeed baa shacab lagu wareejinaya waa qalad shacabkuna waad ogtihiinoo maanta dadku waxay ku hayaan intii yarada imika uu naga xumaaday dadkii waxay weydiinayaan waxaanay qaadi karin dadkii dabkii uma gelinayaan waxaanan aaminsanahay maanta haddii institutionkan dawladdu uu meesha ka baxo warshadan leedhku haddii ay meesha ka baxdo maanta dadka $1 bay ka qaadaan annaguna 6,000 oo shilin baanu ka qaadnaa waxoogay baanu ka yara jabannay waxaa laga yaabaa maanta marka ay dawladdu meesha ka baxdo baraaska waxay doonaan waayo waa wixiisii iibinaya oo profit oriented weeyaan tanina waxa weeyaan dee shacabka iyo dadweynaha ayuu danaynaysa kaasuna waa profit oriented oo waxaa laga yaabaa inuu $3 ama $2 inta ay ugu yar tahay inuu dadka ku dalo marka shicibka ummadan ahaa waxaan leeyahay meeshan shacabka ayaa leh meeshan xukuumadda iyo shacbigu waa isku mid waayo xukuumaddu waxay matalaysaa shacbiga institutionku wuu dhisan yahay leemankiisi way dhisan yihiin transmitradiisi way dhisan yihiin shaqaalihiisi wuu dhisan yahay way soo kobcaysay waxay u baahan tahay maanta waxay u baahan tahay oo keliya xagga mishiinada uu laga caawiyo inayna qanciso dawladda ayaan soo dooranay annaga shicibna nama qancinayo dawladda ayaan qancisan doonayna annaga dhaawac baa guriga noo dhex jiifa tuug baa nagu dhex dishay daaimkana waxa la leeyahay shicib baa dawladda leerka la wareeg anagu shicib la wareegan anagu kuma galayna dawladda noloshu waa biye waxa ku xidhan tahay la leeyahay hana qanciso dawladda ayadu hana qanciso mishiinada noo hagaajiyo anagu taasaan ku hadlana imkana dhaawac baa guriga loogu yimi dhaawac noo jiifa waana lagu dhex dilay tuug baa noo soo dhex raacday qolti shacabku waxaan u sheegaynaa inay istejiyaan waayo shicibka annaguba ay ka go'an yihiin baannay dee madaxweyneyaal baa dhintay jiin yaroo xumaadaa waa la shacabka waxaan leenahay intaa iyo in ka badanba in la isku dulqaato 7 habeenba maalin walba waan imanayo jiinada nimankaasi kamay bixin way ku jiraan habeen iyo maalin ma hoydaan shicibkana waxaan leeyahay in loo dulqaato oo aynu u samirno in ka badan iyo intaaba u maqnaan karaa wixiina way jiino waa kii aad ogeyd baa imika xumaan karaa waxaan leeyahay gacanta dawladda waxaan hubaa inaanay ka baxayn waayo dawladda biyo leerku bay dawlad ku tahay marka dadka waxaan leeyahay ha u samraan intaa waa laga shaqaynayaa ha loo samro dee war xumo tashiilo u jiraa intaasay dadkana haddun qaataan malay waxay dawlad ku tahay inay leerka iyo biyaha iyo waxyaabaha badan ee shicibku u baahan yihiin inay ka adkaato waayo dawladdu waxyaabo badan ayaa looga baahan yahay waayo shicib iyo dawlad isku mid maaha dawladda waxaan u dooranay inay leerka naga qabtirto oo biyaha naga qabtirto dawladda waxaan doonaynaa inaan mar labaad u kordhiyo aniga waa Koos Cabdilaahi Cilmi waxaanu ka codsanaynaa dawladda sharafta leh ilaahu diinta iyo dawladaba noo adkay baan leenahay marka hore cadaaladana noo hagaajiyo oo noo garansiiyo waxaanu ka codsanaynaa annagoo ah dadkii shicibka ahaa ee leerka shidanayay
imakana laydhaana ku dhacday oo guryihii naga madow yihiin nana leeyahay waa la bedelaya dad kale loo bedelaya inaan loo bedelin ee gacanta dawladda aanay ka bixin oo dawladda iyo shicibku wada weligood boy kala aanay dawladdu xoog weynaataan doonaynaa annagu oo aanay gacanta shicibka ku wareegin ee naloo adkeeyo oo naloo joojiyo